السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله. إلهي بانكم mahadinaynaa masaajidka jaamica ee nagu soo kulmiyey. wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaana ilaahay inaan u dhowaano. a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka ay nagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan, keenna hadlaaya iyo keenna lala hadlaaya, inteennuba waxaan u baahannahay ilaahay inaan u dhowaano, inaan ilaahay u dhowaano, oon aakhiradeenna u diyaar garowno, oo adduunyadan aan ka qaadana diin waxaan ahay ninka ka qaata u khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weyni ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay. innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegey. calamka samadoo dadka khalqiga ku noolee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqallo hebel baa go-ay muxuu ka tegey, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegee lahaa, meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay ahaayeen. cabdillaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi, asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa, way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen. sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi, low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi
qosolka aan nagu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay. haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosolka aan nagu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan. qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay, anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay, anu gurigii madoobaa baan ahay. waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa. nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam. markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya. su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya. haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. oo su-aasha qabriga waa maxay? waa saddexdaas su'aalood weeyaan. man rabbuka, man nebiyuka, maa diinuka. mar allihi markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. laba malag baa u iman doonta alfataanaan, deedna way fadhiisinayaan qofka. saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan. hadduu boqor yahay waa la weydiin, hadduu caalim yahay waa la weydiin, hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin, hadduu faasiq yahay waa la weydiin. bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa. man rabbuka, ayaa ku rabbaynayey, ayaa ku quudinayey, ayaa ku arsaaqayey, ayaad caabudaysay, ayaad baryaysay, ayaad rajaynaysay, ayaad tala saaranaysay. maa diinuka, diintaadu maxay ahayd? dhaqankaagu muxuu ahaa? maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay? man nebiyuka, ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay? markaa qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad. ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona. walaalayaal, ilaahayna haynagu sugo, allah haynagu sugo, allahana inoo dhib yareeyo. saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa. marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay, ilaahay maad arkin laakiin rumee. makhluuqaa kuu muuqda, makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo. jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko. adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo. manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid, waa qayb. aakhira taa lagugu tusin doonaa. shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat, wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa. shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa. maanta adduunyada inoo muuqato, aakhira inooma muuqato. laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid. waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan, laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa. oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa. ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa. waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay. hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii. hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa. hadduu khayr ahaana thawaabkii, ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa. adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay, aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo, laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa. wa min aayaatihi alleylu waannahaar, habeenku waa aayad weeyaan. aayad waa maxay macnaheegu? waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo.
maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahdaa maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha le waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay ee nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu ihi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dul yaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oon ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolahay letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku aladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii waladii yumiitunii ثuma yuxyiinii wa usuul aliimaan usuul alcaqiida waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto shifaadu xag ilaahay bay ka timaadaa dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan laakiin risiqu xagga ilaahay buu ka imanayaa waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan keligii rajee keligii ka cabso keligii baryo baahidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lilaah wa abqada lilaah wa acطaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakadii muslimiintuna xaggaa ay joogaan gaaladuna xaggaa ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhacoo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakadda iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali
qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadhaa ay soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawadee baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay maydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida inakuba aaladan yare imika aan haysaneen moobeelka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xurulcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahlu ljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaarayaa ma jirto jannada ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكإلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونان لأن حق إلهي بالله سؤرين دونا مرقاس قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي حي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي waan jiifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايل هيري آية الليل آية النهار نولش أدويدا أن كنا الله ومالين يهبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان سبيحتها يوم المحشر
وبريقنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدويدن انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمنكين بربرها جنة كميدا لوغا ديغيا قال كينا waxa looga dhigaya godgododka naarta kamida looga dhigaya dina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan مالك قيامه صورة الله أفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دو شيء لا إله إلا الله إهل كيك النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسردي الندامي مرق لي أركي مايان وحاد موداب ونبي قول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد انت اسكهر قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحان كم هدنا نحدنتي مرقتي أنك النقاقاذي ربي جاي واكيد دافتان كبنا إيه شكور كها ويان إيه أفعاش وناكسني أدون كل ما در لك كجن نقضي ويان لأنه يصوب حيان يوم القيامة ما لين تسرجوجا ويوم قرآن كيوم بوشيجا هبين مشيجن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين من مغليسد هبين كدون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا على الجوغي طبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا طبان كنوا صنوا حسابتا كل مان دون نينا عربي ورير بادية أيا سراك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كود دارتي وان بدباد نيبودي وان نبات قلبي يري مرقا ابو النبي قول صونقو سيادو كون نبات قشيبو كيري بلي شك وعد وكريم إلهي وكريم هدو دونا وسكك أيا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يري وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك ماذا مجرو هدو جرين أبو رسول كل يحي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عيد وكل أفعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة ميدك تو ايجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو أركي هرتي سو ايجي نار تيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نار تا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كي يشا
تمر جيحيد وصدقاء ضب حسان كلين نقطنا تمر جيحيد ولو بالشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي يقولي تمر جيح تمر إني كان هلين أبو نبي يقولي هذا الكون أكسن هكو هالله كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة وناكسن منكر كودو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفو البباردي سيبا كتا الله دواسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هاوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نمبا ما قبضبا ما نقبا ما بإيجي يبو رسول قد همي قام مجربو يدي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نيكال أورنجري وحوها نين مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنبا ليدي نيكاس دولك مويان عرك ما ايغين markaas lagu yiri murugtan badan waa maxay baa lagu yiri ma dadkan waxay ogaan baa adigu ogaatay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegayaa al mawt fi unuqi geeridii baa qoortay ii sudan wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyaamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan wa ala siraati tariiqi wadada la marin doonana waa jidka siraad weeyaan وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمين دوننا كما ورقبي بود أنيكو أنت سو مرحلة نيكا أي سوق أيسو إسقو هذا قصله حق قصله بيدي أنو تيدا كورما يا بودي أنت نولا هاي أوهم بنولا شيء كودا ما يسمى بيدي ما أنت وأدويو بريتولا وآخره ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محاد وضاتا محاوتا أنوغو مانتا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدد قيامة مرقو النبي قال كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالنك سرجوغا أيا وات كيسان كريا بي كتري من يقوى أيا كريا بي كتري كنتم كنو صندو مرقابو النبي قال يا عائشة وفق مؤمنك إيمان كله إيه أدوية دوشيد إلهي كسو أضاعي والله فوديدين صلاة فرضك انت تكتان إن لك بابنك قيام الله قد يقول انت تكن صلاة المغرب 5 دقيقة لبي 8 دقيقة صدح 8 دقيقة مؤمنك إيمانك له إيه أدوية انتو جوغا كالصحيقاتي إيه إلهي تبارك وتعالى أكتيس وحسير دكتي إيه آخرة كسي حساب تمي إيه تلابضو قاذا يبا إيه آخرة ديسا هذا الكنتو كسوا بحين قفك مؤمنك آخرة إيجا دقاليه سينتون بحين آخرة إيجا ماشو مريو آخرة إيجا ماشا عنو السعودة ما مال آخرة ذي إيجا داوعي سبا مسوا مال آخرة ذي وحيط رئيسا هذا الكايجا صباحايا ما هذا الآخرة ذي داوعي يبا أو نبي كي سنة يهدو طول مسوا هذا الآخرة ذي دانكو بدبادايو دقالهم بحنايو ما دقال آخرة ذي كبا يبا أو آخرة كو بدبادا يبا أو مال في عمبو يقول دعيا بس آخرة يدي بو دقالها سيجا بينا يا أو كقبصة أنت جوري جورته مؤمن كو حساب تميا مؤمن كأدوية دوشيدا إلهي كسو أدعي كسو عبودي صلاة دايرة فرضك أنت وتكني إن لعك بابنك قيام الله قد جايا dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay ku aakhiradu kugu saameynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid
waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mida ayaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mida aqal yaroo cariisha markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بني آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلين يا وحنا ديجس قلبك سامين يا وحنا ديجسنس قلبك سامين يا وحنا تكون قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا وأفرت قصبضات قلبك ابن آدم كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتب قلبك قلع وعاد كهذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبيا لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء قلبك دحل لك قبيا قرآن كآخر سكي سؤال الله بديو يا آخرة وإنت بدل لا شك شك الله حسوس الله شك أيو labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa مساجد سوق المسلمين كمصلاهم بيقول علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو وسدا مساجد أو كلويان سدا مساجد إله الله جوينين أيو أي زمن النبي سوقنا إله الله جوينين أي سدا مسجد كده حديث إله الله جو عاصيين أي سوق جينا إله الله جو عاصيين إنك أنا زمن كنا مانتا شيء كذي دبادة تالي أي الله جاي أبين لك أنا مسجد كجوديهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا يا مرقابو النبي يقول إلهي كوم السوء اللي يبو كيري هذا أركتام بو النبي يقول إن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا يا وعاتر هذا إلهي كوم السوء اللي يده هذا أركتانا نن مسجد كده حديث جناعسي هي تجارة كده سمينا ينا وعاتر هذا إلهي كوم بركة يده إنما بنيت المساجد
لما بنيت لها مساجد وحي لو دسيبا لو دسيب رسولك يري نولش مساجد تالا بي علماء ليهين ايا لا ربا ان دبد لو ساري نولش دبد تالا مسجدك ان لكينا ماها عهدي نبينا عليه الصلاه والسلام يا عهدي صحابه dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhirada ay ku weyneeyeen dibaddana aakhirada ay ku weyneeyeen wallahi siiraday ku taala Umar ibn Khattab suuqa Madiina intuu galab oran jiray halkan in fariisiya ilaahay saacadaha rumeynay kaalaya Abdullah ibn Umar intuu yimaado Tufayl buu ku oran jiray إن مري الراعب ورنجري حقين تجنا سوقا تجنا سوق يوم سوق حيان هذا أنا مالك قالوا لي إن مري الراع هذا أنا مالك سدحات بوري الراع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يا طفيل وتابعيها مالك سوق مرقوا دور عيسى مرقوا سوقي كعل عليي وكعل عليي بوكير يا ابن عمر سوق وين جيسا مالي والبا بدعنا كما سوى يبستد بدعنا وما يبجيسد badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaan nama fadhiisisid war halkan inna fadhiisi buu halkan noogu sheekay buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibn Umar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuran li inma naqdu min ajli salaam waxaanu ka lahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaano baanu ka lahaynaa buu ka yidhi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu baanu ka lahaynaa والدعاء ويان دعاء بانو كلا هينا مسلمين تانو دعينينا يكونوا وينو دعينيان بقول قف بانو دعينينا بقول كاسي وينو جوابيان والدعاء لقى يا بابا بقول أولياء إلهي انت يكون حجرته إن إلهي دعاء ضد النوع أقبله صلاة المسلمين تلسيوا معي صلاتين السلام عليكم نبت قل يدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركات إلهي كركاها هذا كي كلا مسلم كواحد كليه أديقنا نبت قليدي إلهي يا نحريست إلهي يا بركات إلهي كركاغا هذا بوكليهي سلامتا صلى سوك الله هينا بقول قف سلامينا لما بقول قف سلامتا أمد سلامينا وينو جوابيان وحي قرنا يا صحابتو إن سلامتا مسلمين تعالى دحمرين إلهي انتو أقبلوا إن النبت دي هلان أو نحريست دي هلان أو بركات دينا هلان إنكو بغاش كأيو بداعد يا دويدا لوك الله هم ويانا سنة النبي لوك الله هاي ولقون ولا نجمر دعسنا ما أنت سلام تاسع لقول درجيا علي بن أبي طالب إنه يمدو كيري صاحب العيال بانا هاي معيشتي بيقو أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسحه لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قفك هذا أوين مركز لا سعته آيات هر سعتها بوكيدي هذا هر مرتع مركز مي حدنا مركز دعاء سنة يسد ما لقى يا باين الله بدأ ذو والد الله يدم بدافع أنا ذو ويدين مركز ها مركز برتا أرزاق هذا كاحد واتاس لبدأ والد بعد كوب درب أرزاق هذا كوفر مية ما لها إنكم يقول أحمد كيا جنا يا مي سلام تدتك أي سلام يا برزقك كده حركيين والدك الدعاء دي سووا دعائين برزقك كده حركيين استغفرت أي بدنا يا برزقك كده حركيين صلاة الضحى أي تكن يا برزقك كده حركيين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد موديس الصلاة جماعين لتكن يا مسكينك زحمة يعيدك كده عيا دينتن إلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعدت ونقبل أبنتو بل إلهي دينتن وحي نوسيي إن ندون كان يآخران كدرنا كل بانو مركا نولشان أدوية إنتان هايسان وفرصد يعني نضيعنا أدوية دينها كقادنو دينتنا أساس كيك وإيماني يقين ويان يقين إيمانك وامحي إلهي الرماء يقينتنا وامحي آخرتها كل وينات والله هذا آخرته إن لو ويناته رقم كنا توصي
ورزقنا حلال نقن ومجتمع ودن بس بدلي وايو لأن مجتمع وحي نقن مجتمع آخر حساب تمايا سيدي لبادين حديث النبي قلنا وقول شيء في السنن نبى نندل كإيبيي دول كي مركو قتي ودول بارد بوها أو فلاي مركا خزن الذهب مركا وقصوا بحذا جرة من الذهب أو قاتي أو لا أرضو نكي لهاب أو كانوا كيري ودول كادي إيبي سي ذهب كإنت لك بقى صباحه ما له هواد اللي سنة إيجا قاضي بكيري مركا سوين ماي أنا كمو وجين هذا إلهي كاسية هذا إسكلا إسكا قاضي بكيري وروحنا هذيك عليه إيجا قاضو إنك الزمن كأنه معي وروحنا هنيك عليه السي وينتين وحكوا تقال منه دول كان هنيك عليه قري كان هنيك علىها مهردنا هنيك علىها وحنا هنيك علىها بس كويس إننا إياك واحد تاجنا يندتكم مركي هجاجين وروحنا هذيك عليه إيجا هو إياك قاضن مايو ما دعي كرتو ماي هذا إسكالي هذا إلهي كوسية إسكا قاضو ماي دول كان هذا إيجا إيبيي ما له هواد هالمامسنته هذيك إسكالي إيجا قاضو وحن ملي هنقويه لعكت أنت لقنا نكوم السينة ماي لابدين إن أنت إسقاب صدام بمحكمة تجين حيث كويستان كان وحولية حولها إنك لا عليها إيجا قاطو كان وحولية ورملية إسقا إلهي سيه هسكا قاطو قاضي مركا قاضي في عنبوها قضاء الزمن كان لقى يا بيني أورن لها حولها دولة ده لسه كنا إذا غرب بس كفي عن وجراني لكن كود وعسك جرى الدولة ده وش غير وقتها حولها دولة ده لسه كنا هلها كم حينكونا مورن وحويري هذا محل لها أوبد ويل هذا قلنا قبل لبدا اسكو غوريا لبدا أنا حولها صيب ويلي بالفرس إصلاح هو عجيب هل كان هذا إصلاح هذا عجيب هل كان هذا حماة لكن دقيقة قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام سيدي ولا السعودين أي مادين مل بنانك وذهب كيالو دايماًكو مركز النبي عيسى كويد وحن ودايما والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاد مركز النبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا قاعدة ثاني راعي مثلا واديك هذا نقاد بودي ديني أدوية اسمه راعي أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بلد النبي أي أندر ذاك مركز الذهب كي قاتان وإلا السعودان وإلا اللقيين مقالة دي مركز ودوا هذين بيد هذين حدان مالين قال له ولا نقدعي هبين هنكو بيقنو لكن واقاجونينا ويتشدين وعيد هذا الله بالذهب كاسي إلى للسوء من مقالة دي انتو تقو cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga uu kugu fiican yahay cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaan dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadii buu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskaarijiyeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay jirto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday
addoomihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeeduu deganaa ribda meel la yidhaah oo cuhmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u gur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cuna isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa ma ahinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay oo u yimiday uu salaamay wuxuu idhi amiirkii mu'miniinta cuhmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weeyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tagin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday
markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socda buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nabiga ay ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam yidhi cusmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxuu nabi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal gelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nabigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunya iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياضة سوق يقع نوح كوي بن كرام مجرب عمر أورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيموياني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء تشين يا تايلاند بلغوا الدولي هبري با سعودة كلها تشين هاو سعودة حاجة سعنا war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ay kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar aan joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadano oo diinteena ha baranno oo diinteena ha ka shaqeyno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabr buu nabigu yidhi waa zamanu nabi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor ninka diinta maalinta iraada waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiiya waa mujtamac qofku hadduu yidhaahda maanta sunnaha nebiga ku fara adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteena u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culimmadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalka diinada maanta caalamka ka socda la rabaa caamadeennu inay culimmada intay garab joogsato aan meel kaliya u wada jeesano insha Allah dhahada tama gudoona dadaalka diinta mise dhageystayaal wanaagsan baan noqonaa ya dhageysta wanaagsan waxa ka wanaagsan dhageysigu waa min diin weeyaan laakiin waxa la doon inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay uu geliyay ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaale lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajaahad lahaa wajaahadiisu ummadda wax ku taray Usmaan ibn Affan Umar buu nabigu u diray Makka markii sulh al-Hudaybiya waa ka cudur daartay Umar
wuxuu aniga may buu Usmaan baa ku munaasaba buu yiri Usmaan baa ku munaasaba Usmaan buu nabigu yiri dal waa runtii Usmaan adigu tag Khalid bin Walid geesinimadii raganimadu lahaa umadu wax ku taray maalintu soo islaamay buu nabiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yiri Ilaahina dambi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaas oo muslimiina ku laayay buu ka yiri ka qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga Ilaahay ku leysaan kaaga rajayne qaada buu yiri seefta Ilaahay diintiisa u jihaad wala raganimadii ba xagga kala loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu umada ku anfacay kii dhaqaale lahaa dhaqaalihiisu umada ku anfacay zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu nabigu diyaariyay ummad nin walba salaaxiyada ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka inakuna kulligeen insha Allah ta'ala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqda insha Allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallahi waan runtan inii sheegay macallinka quraanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada Ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muhsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo oo ka qaadan kara wa'tasimu bihablillahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kasto muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kalimada wanaagsan buu nabigu waa sadaqad kalimada wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nabigu yiri jannadu galay buu rasuulku yiri jannada ku arkay buu yiri haweenaydii masjidka nabiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nabiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nabiga looma sheegin waa la aasay marka buu nabigu yiri jannada ku arkay buu yiri jannada ku arkay jannada ku arkay maxaad igu sheegi weydeen buu nabigu yiri khayrku yar yaraysi male marka waan inagu dheereeyay insha Allah ta'ala wixii wanaag iyo khayr soo dhaxmarina Ilaahay bay soo dhaxmariyay anigana miisaanka xasanaadka Allah ay saaro ikhlaaskana Allah noo wada ziyaadiyo culumadana soo dhaweysana waxa leena jazaakumullahu khayr sheekh maxamed waxa leena margeysaan marti kuma hiya waan deganahay ya deganahay ma sha Allah ciyaalka reerkii oo dhan baa jooga marka Allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada wa sallallahu ala sayidina Muhammad بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل